السلام عليكم أصحابتا وردك دقاه ميان لها نينكي ترامها waxau leeyahay heshiis xabad joojina ayaa la kala dhex dhigay wadamada Iiraan iyo Israa'iil waxaan ogeyn caawa in xarunta ugu weyn ee saldhigga militariga ee Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe oo ku taala caasimadda wadanka Qatar ee Doha ee Al-Udeyd la yiraahdo in ay Iiraan duqaysay walow Trump uu leeyahay waa naloo sii sheegay oo waan ka gaashaamanay laakiin Trump ayaa bartiisa Truth Socialka qoraal aad u malayso in xoogaa muranna uu ku jiro qaabka uu soo qoray oo fahamkiisu uu adag yahay ayuu ku soo qoray bartiisa Truth Social ka hor intii uusan soo qorin waxa uu yiri caalamku waxaan ugu hambaleynayaa in la joogo xilligii nabadda kadibna waxa soo xigtay inuu ku soo qoray qoraal dheer oo ku leeyahay hambaliyo qof kasto waxa si buuxda ay ugu heshiiyeen wadamada Iiraan iyo Israa'iil in xabad joojin buuxda ay gaaraan ku dhawaad 6 saacadood kadib oo hadda laga bilaabo waa markuu qoraalka soo qorayay oo ku dhawaad 3 saacadood Israa'iil iyo Iiraan waxa uu yiri xaaladda waa ay qaboojinayaan kadib marka ay horumar ka gaaraan mishinadooda ama howlgaladooda ugu dambeeyo macnaha wali wax isku turtuur miya dhiman masaxba joojintu hore ay ka dhaqan galaysaa meeshaasi muran ayaa ka jira 12 saacadood kadib marka xilligaasi la gaarana waxa uu leeyahay dagaalku waxa uu noqon doonaa mid si rasmi ah u dhamaaday Iiraan ayaa marka hore xabad joojinta bilaabi doonta waxaan ognahay Iiraan markii hore in duqeynta lagu bilaabay oo dagaalka Israa'iil bilowday laakiin hadda waxa uu leeyahay xabad joojinta waxa bilaabaysa Iiraan waxa uu yiri markaasi kadib 24 saacadood marka Iiraan xabad joojinta ay bilowdo dhinaca Israa'iil kama dhaqan galin macnaheedu waxay tahay Israa'iil waa ay duqeyn kartaa Iiraan marka 24 saacadood kadib ayaa waxa yiri waxa loo aqoonsan doonaa si rasmi ah in dagaalkii 12 maalmood uu dhamaaday caalamkuna wuu salaami doonaa marka waxa yiri inta marka mid kasta xabad joojintu ay jirto labada dhinac mid kasta waxa uu ahaan doonaa mid oo nabad ah isla markaana la isxusmeeyo mid walibana midka kale uu ka soo qaadayo in ay shaqaysay xabad joojintii macnaha waxa yiri waxaan jeclaan lahaa inaan u hambaleeyo labada wadan ee Iiraan iyo Israa'iil adkaysiga ay u yeesheen arrintan geesinimada iyo waliba ayna dulqaadka ayraade in maskaxda ay ku soo gabagabeeyeen waxa loogu yeeray ayuu yiri dagaalkii 12 maalmood dagaalkan waxa uu yiri inuu muddo socdo sanadaha ayaa loo maleynayay laakiin wuxuu yiri wuxuuna burburin lahaa dhammaan bariga dhexe laakiin hadda ma aysan dhicin mana dhici doonto marka Israa'iil iyo waan duceynaya bariga dhexe iyo waliba Iiraan iyo Mareykankana waan duceynaya Donald J Trump ayuuna soo raacay marka ninkii Trump aha qoraalkiisu inkastoo isku laalaabanayo oo fahamkiisu adag yahay waxa laga fahmi karaa in heshiis xabad joojina labadii wadan la kala dhex dhigay dawladda Qatar inay ka shaqeyso ayaana loo maleynaya waayo amiirka Qatar isagoo u mahad celinaya ayuu qoraal kale